runtii waajibka dawliga ah ee saaran saraakiisha joogta halkan waa guteen waana ka soo baxeen iyaga loo igmaday inay ilaaliyaan waxa soo gelayo iyo waxa ka baxaya halkan sida muuqatana marka lawaaix qaanuuni ah oo dawladeed ee jirto ku xadgudubkeeda waxa ka dhalanayo dambiga ka dhalanayo waxa ugu yarna waa in lagu ciqaabo in wixii aad keentay wixii aad doontaa ka soo bixiside in la baabiyo wax ka imaanayo iyo in lagu raad joogo oo la soo helo qofka ka mas'uulka ah arintaas sida darteed waxaan amar ku bixinayaa in la baabiyo marka hore alaabta halkan taalo qaadka halka yaalo in la baabiyo si degdegna loo baabiyo inta ay joogaan dadka halkaas isugu yimid oo marka wada noqonayo baabinteeda iyo sidoo kale in tilaab fi adag laga qaado ciidda ka mas'uulka ah in alaabtan oo in qaadkan uu soo dego yimaado waxaan sidoo kale bulshada Soomaaliyeed meel ay joogaan ba aan siinayaa fariin ah in la raaco lawaaixda iyo wareegtooyinka dawliga ah gaar ahaan hadda waqtigan xasaasiga ah wareegtada ka soo baxdo amba soo jeedinta ka soo baxdo wasaaradda caafimaadka in loo hoggaansamaa waa waajib sharci ah in laga hor yimaado la yimaado afcaal ka hor imaanaysaana waxay dhalinaysaa tilaabooyin ciqaab ah inay saarmaan qofka arinta ku kaco waxaa la mid ah sida aad ka warqabtaan isu tagyada iyo kulanada iyo in la xaadiro meel iyadoo la haysan adawaadkii loogu talagalay in lagu dhowrsado waxaan rajaynayaa marka in tilaabooyinka la qaato qofka keenay qaadkan oo ummadda halisaynayana ummaddu way garan kartaa waan la cabiri karaa inuusan niyo wanaagsan lahayn waxaan rajaynayaa in laga waantoobo howlaha noocan oo kale ah booliiskuna inay tilaab adag ka qaadaan soona mariyaan procedure-ka sida hadda loo sameeyo kalena annaguna waxaan qaadaynaa tilaabooyin degdeg ah oo maxkamaddu ku imaanayso goobaha ay waxaas oo kale ay ka dhacaan meel la sugi karo in meel lagu haayo ee maxkamad loo soo gudbiyo oo waqti dheer ay qaadato tilaabaan qaadaynaa haddii ay dhacdo in la isku qabto qofkii wado iyo alaabtii maxkamaddu halkaan imaanaysaa waxayna ku gelaysaa dacwada isla meesha ku dhegeysanaysaa isla meeshaan lagu soo saarayo go'aana degdega tilaabtaasaana dhowris u ah shacabka Soomaaliyeed tilaabtaasa ka jawaabayso rabista shacabka Soomaaliyeed tilaabtaasa ka jawaabayso dhowridda caafimaadka iyo fayadhowrka bulshada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad hawshiina sidaas idin u gudataan booliis ahaan waa mahadsantihiin